xulka degmada Maxamed Mooge ayaa 3-1 uga soo badiyay xulka degmada Axmed Macalin Haruun tartanka degmooyinka caasimadda Hargeysa ee Astaanka ay ka wado garoonka weyn ee Hargeysa Stadium. Halkee ayaa la kala marayaa liiska Dhalinta tartanka caasimadda degmooyinkeeda ee ka soconaya garoonka weyn ee Hargeysa Stadium. Waa 17 bisha Dulxija sanadka 1440 maalinimo Axada. Aniguna waxaan ahay Axmed Taye Qaran. Ku soo dhawaada wararkaasi oo faahfaahsan oo aan idin soo gudbiyo. Aanu ku bilowna daqiiqadii shanaad xulka degmada Maxamed Mooge ayaa dhashatay goolkeedii furitaanka kulankanna waxa uu dhaliyay Mukhtaar Cumar Maxamed oo ku magac dheer Mukhtaar Aswad. daqiiqadii 19aad xulka degmada Maxamed Mooge waxa uu haddana dhashaday goolkoodii labaad waxaana uu dhaliyay Sakariye Khadar Koosaar oo ku magac dheer Sakariye Bullo. qaybta hore ayaa lagu kala nastay 2-0 ay hoggaanka hayso xulka degmada Maxamed Mooge iyadoo loo gudbay qaybtii dambe ee ciyaarta. daqiiqadii 69aad xulka degmada Axmed Macalin Haruun ayaa dhashaday goolkooda waxaana uu dhaliyay Xamse Cali Sugulle oo ku magac dheer Kaga. daqiiqadii 92aad xulka degmada Maxamed Mooge ayaa goolkoodii saddexaad ku soo xidhay ciyaarta waxaana uu dhaliyay Iid Cabdiraxmaan Yuusuf. si kastaba xulka degmada Maxamed Mooge ayaa 3-1 uga soo badiyay xulka degmada Axmed Macalin Haruun iyadoo kulankaasi uu soo xidhay wareegii koowaad tartanka degmooyinka caasimadda Hargeysa ee Astaanka ay ka wado garoonka weyn ee Hargeysa Stadium ee magaalada caasimadda Somaliland ah ee Hargeysa. dhanka Dhalinta ayaynu markaan eeganaa guud ahaan intuu tartankaasi uu socday oo 4 cisho oo markaasi isku xigta ahayd laga soo bilaabo Arbacadii ilaa iyo Sabtidii shalay waxaa guud ahaan tartanka ku soo dhashay 21 gool oo ay markaasi kooxuhu soo kala dhaliyeen. guud ahaan marka la isku soo wada geeyo waxaa goolashaasi soo kala dhaliyay 18 ciyaartooy. haddii aanu ku horeyno guud ahaan tartanka Dhalinta waxaa ku hogaaminaya Maxamed Xamo oo guud ahaan hal kulan ku dhaliyay 3 gool aba nooca afka qalaad loo yaqaan hat-trick. waxa uu ka tirsan yahay degmada Axmed Dhagax. waxaa ku soo xigay Siciid Maxamed oo ku magac dheer Siciid Messi waxa uu isna hal kulan degmadiisa Ibrahim Koobur ugu dhaliyay 2 gool. dhinaca kale haddii aan eegno Cabdiraxmaan Takar iyo Maxamed Doox oo ka tirsan degmada Axmed Dhagax min 1 gool ayay degmadooda u soo dhaliyeen. degmada Gacan Libaax haddii aynu eegno Saleebaan Cabdi iyo Abshir Xasan min 1 gool ayay degmadoodaasi u soo dhaliyeen. Cabdilaahi Carlos Maan Adeere iyo Aadan Asensiyana min 1 gool ayay degmadooda 26 Juun u soo dhaliyeen. Mahad Marcelo Muuse Axmedna waxa ay min 1 gool u soo dhaliyeen degmadooda 31 May. Maxamed Suule Liibaan Cabdi iyaguna min 1 gool ayay degmadooda Ibrahim Koobur u soo dhaliyeen. Cabdiwahaab Maxamedna waxa uu 1 gool u dhaliyay degmadiisa Maxamuud Haybe. dhinaca kalena Mukhtaar Aswad Sakariye Bulle iyo Iid Cabdiraxmaanna waxa ay min 1 gool u soo dhaliyeen degmadooda Maxamed Mooge iyo ugu dambeyntii Xamse Kaga oo 1 gool u soo dhaliyay degmadiisa Axmed Macalin Haruun ee magaalada Hargeysa. garoonka Xawaadle degmada 26 Juun ee magaalada Hargeysa ciyaar saaxiibtinimo oo in badan la wada sugaya ayaa ka qabsoomi doonta Galabta 4:00 galabnimo haddii alla idmo. ciyaartaasi ayaa dhex mari doonta labadii kooxood ee magaalada Hargeysa caanka ka ahaa ee Somaliland Space Channel iyo kooxda British. ciyaartaasi ayaa qabsoomi doonta 4:00 galabnimo waqtiga Geeska Afrika iyo guud ahaan magaalada Hargeysa haddii Allah uu dalo idmo. labada degmo ee Axmed Dhagax iyo 31 May ayaa iyaguna Galabta ku ballansan garoonka weyn ee Hargeysa Stadium iyagoo markaasina lugtii labaad furitaan u ah guud ahaan tartanka degmooyinka caasimadda Hargeysa ee shirkadda Astaanka ay ka wado garoonka weyn ee Hargeysa Stadium ee magaalada Hargeysa. haddii aynu in yar qoraansano amba aynu dib u yara raacno xulka degmada Axmed Dhagax lugtoodii koowaad ee furitaanka waxa ay 5-2 uga soo badiyeen xulka degmada Gacan Libaax halka xulka degmada 31 Mayna looga soo badiyay 3-2 oo ay markaasi degmada 26 Juun ay 3-2 ku soo badisay. guud ahaan afartaasi xul degmo waa 26 Juun waa Axmed Dhagax waa 31 May iyo Gacan Libaax waxa ay ka wada tirsan yihiin gruubka A amba gruub A. intaasna waxaan ku soo afmeerinaa wararkii malcab tan iyo kulan dambe waa dhammaan bahdii malcab anigu Axmed Taye iyo dhammaanteeda isku duubano idin leh nooli kulante nabadgelyo.